waryahow ku soo laabta kanaalkiina aad ugu jeceshihiin ee soo koobida animega. Sheekadanii hore iyo khulaasaynteena sabab aan la garanayn ayaa YouTube ugu mashquulnay. Sidaas darteed maanta waxaan dib uga bilaabaynaa sheeko cusub. Waxaan idiin wadaa mid ka mid ah saddexda anime ee aan ugu jeclahay abid oo aad u xiisayn doontaan. Sheekadu waxay bilaabanaysaa iyadoo la arkayo Midoriya oo yar. Inkastoo uu weli ilmo yahay, wuxuu isku dayayaa inuu caawiyo carruurta kale oo ay ku jiraan Bakugo. Midoriya iyo Bakugo saaxiibo dhow ma ahayn, laakiin way is yaqaaneen. Midoriya mararka qaar dadka ayuu badbaadin jiray, balse si xun ayaa loo garaaci jiray sababtoo ah wax awood ah ma lahayn. Maalin maalmaha ka mid ah, ilmo yar ayaa si lama filaan ah u ifay sida nal. Kadibna si tartiib ah ayay dadka adduunka oo dhan u bilaabeen inay helaan awoodahaas gaarka ah. Dadka awoodaha hela badanaa laba wado ayay maraan. Mid waxay noqdaan geesiyaal dadka caawiya, ama waxay noqdaan sharwadayaal ay geesiyaashu garaacaan. Midoriya wax awood ah haba yaraatee ma lahayn. Isaguna wuxuu ku riyoon jiray inuu noqdo geesi. Riyadaasna waxay ka timid geesiga uu u jecel yahay, All Might. Tan iyo yaraantiisii wuxuu doonayay inuu noqdo sida All Might. Laakiin maalintii uu ogaaday inuusan lahayn wax awood ah, adduunkiisu wuu dumay. Qalbigiisu wuu jabay. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu isku dayay inuu dhoola caddeeyo sida All Might, wuxuuna hooyadii weydiiyey hal su'aal oo keliya. Weli ma noqon karaa geesi? Hooyadii way isku duubtay oo oysay, laakiin jawaabtii uu rabay ma siin. Si kastaba ha ahaatee, Midoriya ma quusan. Wuxuu sii watay riyadiisii ahayd inuu maalin noqdo geesi. Wuxuu buuggiisa ku qori jiray dhammaan awoodaha geesiyaasha iyo sharwadayaasha si uu isku diyaariyo. Si uu riyadiisa u rumoobo, Midoriya wuxuu u baahan yahay inuu galo iskuulka geesiyaasha ugu fiican dalka, UA. Waa iskuulkii ay ka soo baxeen geesiga koowaad ee dunida All Might, lambarka labaad Endeavor, iyo geesiyaal kale oo badan. Qof kasta oo doonaya inuu noqdo geesi wuxuu rabaa inuu galo UA. Laakiin markii ardaydii fasalka ogaadeen in Midoriya sidoo kale doonayo inuu galo UA, dhammaantood way ku qosleen. Bakugo aad buu u xanaaqay, xitaa wuu weeraray. Dhegayso khasaaro yahow. Sidee ayaad xitaa ugu fikiraysaa inaad codsato isla iskuulka aan doonayo inaan galo? Ma waxaad moodaysaa inaad ila mid tahay? Midoriya wuxuu yidhi, maya kula tartami maayo. Bakugo wuxuu ugu jawaabay, tartanba ma geli kartid, xusuusnow wax kuwaark ah ma lihid, khasaaro yahow. Run ahaantii Bakugo meel ayuu ka saxnaa. Midoriya oo aan wax awood ah lahayn wuxuu isku dayayay inuu galo iskuulka geesiyaasha ugu fiican Japan, taas oo ku dhow wax aan macquul ahayn. Kadib markii dugsiga laga baxay, Bakugo mar kale ayuu dhibay Midoriya. Xitaa buuggiisii ayuu qarxiyey isagoo adeegsanaya awooddiisa qaraxyada. Kadib wuxuu ku yidhi, Midoriya sidee baad geesi ku noqon kartaa? Ka bood dhisme dheer. Waxaa laga yaabaa in noloshaada xigta aad hesho wax kuwaarka ah. Midoriya miskiinka ah muxuu samayn karay? Wuxuu ogaa haddii uu la dagaalamo kuwaas si xun ayaa loo garaaci lahaa. Sidaas darteed isagoo murugaysan ayuu guriga u sii socday. Laakiin weli ma quusan. Kadib oo dhan wuxuu taageere u ahaa All Might, nin aan weligiis isdhiibin oo had iyo jeer dhoola caddeeya xitaa marka xaaladdu adag tahay. Sidaas darteed Midoriya isagoo dhoola caddaynaya ayuu guriga ku sii socday, balse si lama filaan ah sharwadihii dhoobada ahaa ayaa ka soo muuqday gadaashiisa. Sharwadihii dhoobada ahaa ayaa si lama filaan ah u qabtay Midoriya isagoo isku dayaya inuu jirkiisa qabsado. Sharwadahani ma doonayn inuu dilo Midoriya, balse wuxuu rabay inuu jirkiisa isticmaalo. Midoriya xitaa neef ma qaadan karin. Wuxuu bilaabay inuu isweydiiyo, riyadaydu ma sidan ayay ku dhammaanaysaa? Miyaan weligay geesi noqon doonin? Miyaan weligay la kulmi doonin geesigayga aan jeclahay, All Might? Laakiin markaas ayuu maqlay cod leh, ha welwelin wiil yahow, sababtoo ah anigaa halkan jooga. Sharwadihii dhoobada ahaa aad buu u baqay markii uu arkay qofka yimid. Qofka badbaadinaya Midoriya wuxuu ahaa geesigiisa uu ugu jecel yahay, All Might, geesiga ugu xoogga badan dunida. Cidna ma ogeyn halka All Might ka soo baxay. Hal feer oo keliya ayuu ku garaacay sharwadihii dhoobada ahaa, wuxuuna badbaadiyey Midoriya oo miyir beelay. Markii Midoriya soo toosay oo uu arkay geesigiisii hortiisa taagan, wuu rumaysan waayey. All Might, ma fiican tahay? All Might wuxuu yidhi, wiil yahow, runtii waxaan raadinayay spinach aan casho u samaysto. Waxaan iska iloobay in spinach-ka aan xagaaga la helin. Ha welwelin, sharwadahan waan qabtay. Midoriya islamarkiiba wuxuu soo bixiyey buuggiisii si uu uga helo saxiixa All Might. Laakiin All Might horay ayuu ugu saxiixay. Waa hagaag, kulankaagu wuu fiicnaa. Hadda waan baxayaa. Markaas ayuu All Might hawada ku duulay. Laakiin Midoriya sidii taageere waalan ayuu isaga ku dhegay, labadooduna hawada ayay wada galeen. Carruuray, waan jeclahay taageerayaashayda, laakiin sidan ha ii qabsanina. Haddii aan sii daayo waad dhimanaysaa. Kadib All Might wuxuu Midoriya geeyey dusha sare ee dhisme dheer. Dhegayso wiil yahow, waan ogahay inaad taageere ii tahay. Laakiin waa inaadan sidan samayn. All Might markii uu baxayay ayuu Midoriya ku qayliyey, waxaan rabaa inaan hal su'aal ku weydiiyo. Ma noqon karaa geesi sidaada oo kale ah? Xitaa haddii aanan lahayn wax kuwaarka ah. Markii uu taas maqlay, All Might wuu yaabay. Midoriya wuxuu yidhi, waxaan rabaa inaan noqdo sidaada oo kale. Aad u xoog badan, dadka badbaadiya isagoo dhoola caddaynaya, sharwadayaashana magacaaga ka baqaan. Laakiin si lama filaan ah All Might jirkiisu ayuu isu beddelay. Wuxuu noqday qof aad u dhuuban oo tabar daran. Yaa tahay adigu? Anigaa ah All Might, wiil yahow. Midoriya aad buu ula yaabay sida geesiga ugu xoogga badan dunidu sidan ugu ekaaday. Kadib waxay arkeen dhaladii uu sharwadihii dhoobada ahaa ku jiray.
markii Midoriya ku dheganaa All Might dhaladii jeebkiisa ayay ka soo dhacday. Bakugo oo meesha yimid ayaa si kama ah u laaday dhalada taasoo sii daysay sharwadihii. Dadkii oo dhan aad bay u argagaxeen markii ay arkeen. Markaas All Might wuxuu Midoriya ku yidhi, waxaan kuu sheegayo cidnaha u sheegin. 5 sano ka hor waxaan la dagaalamay sharwade aad u khatar badan. Waan ka adkaaday laakiin dagaalkaas waxaan ku waayay kala barsan babadayda iyo beerkayga oo dhan. Inkastoo qaliino badan la ii sameeyey sidan ayaan noqday hadda. Waxaan awoodayda u isticmaalaa inaan isku tuso qof weyn oo xoog badan si dadku u geesiyoobaan sharwadayaashuna u baqaan. Runta waxay tahay inaan aad u daciifay. Waxaan qaabkan ku jiri karaa 3 saac oo keliya maalintii. Midoriya aad buu uga naxay. Ma rumaysan karin in geesiga ugu xooga badan dunida xaaladan ku sugan yahay. All Might wuxuu sii watay. Inaad geesi noqoto waa arrin aad u khatar badan. Sidaas darteed been rajo ah ku siin maayo. Aragtidayda haddii aadan lahayn wax ku waarka xitaa ha isku dayin inaad geesi noqoto. Kadib All Might meesha ayuu ka tegay. Qalbiga Midoriya si buuxda ayuu u jabay. Xitaa geesigii uu ugu jeclaa ayaa hadda u sheegay inuusan geesi noqon karin. Laakiin si lama filaan ah qarax weyn ayaa dhacay. All Might markii uu halkaas gaaray wuxuu arkay sharwadihii dhoobada ahaa oo dib u soo laabtay. Wuxuu fahmay in dhaladii ay dhacday markii Midoriya ku dheganaa. Waqtigaas awooddii 3 saac ahayd ee All Might way dhammaatay sidaas darteed ma awoodin inuu qaabkiisii xooga badnaa galo. Sharwadihii dhoobada ahaa wuxuu qabtay Bakugo isagoo isku dayaya inuu jirkiisa qabsado. Laakiin Bakugo oo madax adag ah ayaa awooddiisa qaraxyada ku dagaalamayay. Dhammaan geesiyaashii meesha joogay waxay isku dayayeen inay joojiyaan sharwadahan laakiin aad buu u xoog badnaa. Qofna ma xakamayn karin. Midoriya isna meesha ayuu yimid. Wuxuu dareemay in arrintan qaladkiisa tahay. All Might isna sidaas ayuu dareemayay. Cidna ma ogeyn waxa la sameeyo. Xitaa All Might ma haysan waqti badan oo uu qaabkiisa xooga badan ku sii joogo. Laakiin Midoriya markii uu si fiican u eegay wejiga Bakugo wuxuu arkay inuu gargaar u baahan yahay. Iyadoo uusan 2 jeer ka fikirin, Midoriya wuxuu bilaabay inuu u ordo sidii geesi dab ah si uu u badbaadiyo Bakugo. All Might, Bakugo iyo dhammaan geesiyaashii kale aad bay ula yaabeen geesinimada Midoriya. Midoriya wuxuu boorsadiisii ku tuuray wejiga Bakugo si uu waqti yar ugu helo inuu neefsado. Markii All Might arkay geesinimada Midoriya, xitaa isaga qudhiisa dhiirigelin cusub ayaa gashay. Wuxuu go'aansaday inuu dhaafo xadkiisa. Ka hor inta uusan sharwadaha taaban Midoriya, All Might wuxuu galay qaabkiisii buuxa ee xooga badnaa. Inkastoo ay aad ugu adkayd, haddana isagoo dhoola caddaynaya ayuu yidhi, ha welwelina dhammaantiin sababtoo ah aniga halkan jooga. Kadib hal feer oo keliya ayuu ku garaacay sharwadihii dhoobada ahaa. Jawigii oo dhan ayuu beddelay. Dadkii oo dhan qaylo farxad leh ayay bilaabeen. Sidaas ayuu All Might ku badbaadiyey Midoriya iyo Bakugo. Inkasta oo uu xanuun badan dareemayay, haddana hal gacan ayuu kor u taagay isagoo dhoola caddaynaya si uu dadka ugu sheego inuu weli joogo oo uu dadka ilaalinayo. Markii Midoriya guriga ku sii socday, Bakugo ayaa gadaal ka soo istaagay oo yidhi, hey Midoriya, caawintaada uma baahnayn. Waxaad tahay khasaaro aan ku waark lahayn. Ma fahamtay? Weligaa wanaag ha ii samayn. Kadib Bakugo meesha ayuu ka dhaqaaqay. Midoriya wuxuu islahaa waxaa laga yaabaa in Bakugo sax yahay. Waxaa laga yaabaa inuu runtii yahay qof aan wax awood ah lahayn oo ay tahay inuu ka tanaasulo riyadiisa. Laakiin markaas All Might ayaa ka soo muuqday hortiisa. Ha welwelin wiilyahow, anigaa halkan jooga. Midoriya wuxuu yidhi, fadlan is ilaali mudane. Kadib All Might wuxuu yidhi, waxaan ku imid inaan wax kuu sheego oo aan ku mahad celiyo. Haddii aadan ku boodin si aad u badbaadiso wiilkaas, malaha maanta ma aanan awoodin inaan badbaadiyo. Dhammaan geesiyaasha ugu fiican dunida hal wax ayay wadaagaan. Markay arkaan qof gargaar u baahan, jirkoodu si toos ah ayuu u dhaqaaqaa si uu u caawiyo sida aad maanta samaysay. Markii Midoriya taas maqlay, qalbigiisa aad ayuu u taabtay. Dhammaan erayadii dadka sanadihii badan ku lahaayeen inuu weligiis geesi noqon karin, maskaxdiisa ayay ku soo noqdeen. Laakiin markaas All Might wuxuu yidhi, wiilyahow, waan ka noqday hadalkii aan hore kuu sheegay. Adiguna geesi waad noqon kartaa. Markii Midoriya taas maqlay, si aan la xakamayn karin ayuu ooyey. Ugu dambayn, kadib sannado badan, qof ayaa u sheegay hadalkii uu noloshiisa oo dhan sugayay. Laakiin qofkaas ma ahayn qof caadi ah. Wuxuu ahaa geesigiisii ugu weynaa, geesiga lambarka 1 ee dunida, All Might. Kadib All Might wuxuu yidhi, waan go'aansaday, waxaad u qalantaa awooddayda. Maxaad ula jeedaa? ayuu Midoriya weydiiyey. Markaas All Might wuxuu u sharxay in awooddiisu aysan la mid ahayn awoodaha kale. Waxaa la yidhaahdaa one for all. Waa awood jiilba jiil loo gudbinayay, markasta sii xoogaysanaysay. Maadaama All Might hadda dhaawac culus qabo, ma sii wadan karo awooddaas. One for all muddo dheer ayay raadinaysay qof cusub oo loo gudbiyo. Ugu dambayn waxay heshay geesi dhab ah oo qalbi nadiif ah leh, qof naftiisa hilmaamay si uu qof kale u badbaadiyo. Qofkaasna wuxuu ahaa Midoriya. All Might wuxuu rabay inuu awooddiisa siiyo Midoriya. Taasi waxay ka dhigan tahay in Midoriya ugu dambayn heli doono Quark. Markii hore Midoriya xoogaa ayuu ka fikiray, laakiin markiiba wuu aqbalay dalabka All Might. Indhihiisa waxaa ka soo daadatay ilmada farxadda sababtoo ah ugu dambayn wuxuu helayay wixii uu noloshiisa oo dhan doonayay. Subaxdii xigtay waxaan aragnaa Midoriya iyo All Might oo xeeb ku tababaranaya. Jirka Midoriya aad buu u daciif ahaa. Haddii All Might hadda awooddiisa siiyo, jirkiisu wuu burburi lahaa. Sidaas darteed Midoriya wuxuu u baahnaa inuu jirkiisa xoog yeesho. All Might wuxuu siiyey hawl aad u adag oo uu ku dhammeeyo 10 bilood gudahood inuu nadiifiyo xeeb dhan oo qashin buuxo ah.
heebta waxaa yaalay baabuur waaweyn, qaboojiyaal iyo qashin nooc walba leh. qof keliya inay nadiifiyo waxay ahayd wax u dhow wax aan macquul ahayn. laakiin Midoriya ma quusan. inta uu xeebta nadiifinayay, jimicsi ayuu helayay, jirkiisuna sii xoogaysanayay. inkasta oo jir ahaan uu daciif ahaa, maskax ahaan ma daciifin. muddo 10 bilood ah ayuu si adag u shaqeeyey. lafihiisa way xanuunayeen. iskuulka waa lagu garaaci jiray. xitaa si fiican uma seexan karin. laakiin Midoriya weligiis ma quusan. xitaa All Might wuu la yaabay geesinimada wiilkan yar. 10 bilood kadib, maalintii imtixaanka gelitaanka UA la gaaray, All Might wuxuu yimid xeebtii. markii uu arkay Midoriya, aad ayuu ula yaabay. Midoriya ma nadiifin xeebta oo keliya, balse xitaa meelihii ku hareeraysnaa ayuu nadiifiyey. jirkiisii hore ee daciifka ahaa hadda wuxuu noqday mid aad u xoog badan. All Might wuxuu yidhi, Midoriya, waxaad tahay wiil wanaagsan. wax aad u weyn ayaad qabatay. mahadsanid All Might. marka diyaar ma u tahay inaad qaadato awooddayda? dabcan. markaas All Might wuxuu ka soo bixiyey hal timo oo madaxiisa ah. qaado oo cun timadan. Midoriya ayaa yaabay. maxaa? ma qasab baa inaan danagaaga qaato si aan awoodda u helo? haa. hab kale ma jiro. maya. Midoriya aad buu uga labalabeeyey, laakiin ugu dambayn wuu cunay timadii. sidaas ayuu All Might ugu wareejiyey awooddiisii One for All. ugu dambayn Midoriya wuxuu gaaray goobta imtixaanka gelitaanka UA. aad ayuu u faraxsanaa, laakiin sidoo kale xoogaa uu walwalsanaa. markaas ayuu cod ka maqlay gadaashiisa. hay khasaaro yahow, jidka iga bax ka hor inta aan ku qarxin. dabcan qofka hadlaya wuxuu ahaa Bakugo oo isaguna imtixaanka u yimid. Midoriya isagoo degdegaya ayuu hore u sii dhaqaaqay, laakiin cagtiisa ayaa ku dhegtay baaskiilkiisii, wuxuuna ku sigtay inuu dhaco. isla waqtigaas gabar ayaa adeegsatay awooddeeda cufisjiid la'aanta waxayna badbaadisay. magaceedu wuxuu ahaa Ochako. waxay weydiisay, ma fiican tahay? Midoriya isagoo wareersan ayuu madaxa ruxay. Ochako waxay tidhi, nasiib wanaagsan. kadibna way iska tagtay. Midoriya aad ayuu u farxay sababtoo ah markii ugu horraysay gabar ayaa la hadashay, inkastoo uusan si fiican uga jawaabin. kadib dhammaantood waxay galeen hoolkii imtixaanka. halkaas geesi lagu magacaabo Hero Mike ayaa sharaxay xeerarka imtixaanka. ardayda waxaa loo kala qaybin doonaa kooxo kala duwan, waxaana loo diri doonaa goobo dagaal. waxaa jiri doona robotyo leh dhibco kala duwan. mar kasta oo robot la burburiyo, dhibco ayaa la helayaa. qofka dhibcaha ugu badan hela ayaa fursad fiican u yeelanaya inuu galo UA. laakiin waxaa jiray hal robot oo kale oo aad uga khatar badan dhammaantood. robotkaas waxaa loo yaqaanay Zero Point Robot. Hero Mike wuxuu sheegay, robotkan ha la dagaalamina. wax dhibco ah kama helaysaan. ka fogaada oo keliya. kadib imtixaankii ayaa bilaabmay. Bakugo iyo Midoriya kooxo kala duwan ayay galeen. kooxda Midoriya waxaa ku jiray Ochako iyo wiil lagu magacaabo Ejiro. inkasta oo Midoriya uusan weli si fiican u aqoon sida loo isticmaalo One for All, haddana aad ayuu u dhiiran yahay. wuxuu rabay inuu gudbo imtixaanka oo uu noqdo geesiga ugu xoogga badan dunida. laakiin dhibaato weyn ayaa jirtay. Midoriya xitaa ma ogeyn goorta imtixaanku bilaabmay. markii uu fahmay, ardaydii kale horay ayay u galeen goobta dagaalka, waxayna bilaabeen burburinta robotyada. robot hal dhibic leh ayaa hortiisa yimid. laakiin Midoriya aad ayuu u baqay. lugihiisa ayaa gariiray. weli ma aqoon sida loo isticmaalo awoodda All Might. robotkii ayaa ku sigtay inuu weeraro. laakiin isla waqtigaas wiil lagu magacaabo Yuga ayaa hal mar burburiyey robotkii. kadib wuxuu Midoriya ku yidhi, dib uga noqo. markan waan ku badbaadiyey, laakiin mar kale qofkuu iman maayo. Yuga markaas ayuu iska tegey. Midoriya halkaas ayuu taagnaa isagoo jahwareersan. dhibi keliya xitaa ma uusan helin. imtixaankuna si tartiib ah ayuu u sii dhammaanayay. Midoriya weli ma uusan burburin hal robot oo keliya. taas macnaheedu wuxuu ahaa inuu haysto eber dhibcood. dhanka kale, Ochako waxay heshay 28 dhibcood, Ida wuxuu helay 42 dhibcood, halka Bakugo uu si waali ah u burburinayay robotyada isagoo urursaday dhibco aad u badan. waxaa haray qiyaastii 5 daqiiqo oo keliya. Midoriya ma aqoon waxa uu sameeyo. wuxuu ku sigtay inuu gebi ahaanba ku dhaco imtixaanka. laakiin markaas waxaa soo baxay robotkii weynaa ee Hero Mike ka digay. Zero Point Robot. robotkaas aad buu u weynaa, wuxuuna ahaa kan ugu khatarta badan dhammaan robotyada. markii Midoriya arkay, aad ayuu u naxay. hadda ayuu fahmay sababta Hero Mike u yidhi, ka fogaada robotkan. dhammaan ardaydii waxay bilaabeen inay ka cararaan. Midoriya isaguna wuu ordayay isagoo rajaynaya inuu ugu yaraan hal robot burburiyo si uu hal dhibic u helo. laakiin isagoo ordaya ayuu arkay wax qalbigiisa beddelay. Ochako. gabadhii badbaadisay markii uu ku sigtay inuu dhaco. lugteeda ayaa ku dhegtay burbur dhisme hoostiisa yaalay. Zero Point Robotkuna si toos ah ayuu ugu soo socday. Ochako ma baxsan karin. dhammaan ardaydii kale way cararayeen. laakiin Midoriya markuu arkay qof khatar ku jira, isla markiiba wax walba ayuu hilmaamay. wuxuu hilmaamay dhibcihii. wuxuu hilmaamay imtixaankii. wuxuu hilmaamay riyadiisii. waxa keliya ee maskaxdiisa ku jiray waxay ahayd, waa inaan badbaadiyaa. sidii uu hore ugu orday si uu Bakugo u badbaadiyo, ayuu markan ugu orday Ochako. farqiga keliya wuxuu ahaa in markan uusan ahayn wiil aan awood lahayn. markan wuxuu watay awoodda ugu xoogga badan dunida. One for All. Midoriya si dabiici ah ayuu u kiciyey One for All.
awooddu waxay ku faaftay jidhkiisa oo dhan. Hal bood ayuu hawada sare ugu kacay. Qof walba wuu yaabay. Ardaydii way yaabeen. Macallimiintii way yaabeen. Wuxuu si toos ah ugu duulay 0 robotka. Kadib isagoo isku ururiyey awooddiisii oo dhan ayuu qayliyey. Smash! Boom! Hal feer oo keliya ayuu ku dhuftay. Robotkii weynaa isla markiiba wuu burburay. Qof walba afka ayuu kala qaaday. Robotkii ugu weynaa ee goobta yaalay hal feer ayaa lagu jabiyey. Ochako waa la badbaadiyey. Laakiin waxaa jiray dhibaato aad u weyn. Midoriya jidhkiisu weli uma diyaarsanayn One for All. Markii uu adeegsaday awooddaas xad dhaafka ah, gacantiisii midig way jabtay. Labadiisii lugoodna way jabeen. Jidhkiisa oo dhan dhaawac culus ayaa gaaray. Kadib markii uu robotkii burburiyey, Midoriya hawada ayuu ka soo dhacay. Wuxuu ogaa in haddii uu dhulka ku dhaco xaaladdaas ay wax walba dhammaan doonaan. Laakiin daqiiqadii ugu dambaysay, Ochako ayaa adeegsatay awooddeedii cufisjiid la'aanta. Waxay qabatay Midoriya. Sidaas ayay ku badbaadisay. Ma uusan fikirin guul. Ma uusan fikirin naftiisa. Waxa keliya ee uu ka fikiray waxay ahayd badbaadinta qof khatar ku jiray. Taas awgeed Midoriya wuxuu helay dhibco geesinimo oo aad u badan. Markaas All Might isagoo dhoola caddaynaya ayuu yidhi. Midoriya hambalyo. Waxaad ku guulaysatay imtixaanka gelitaanka UA. Sidoo kale Ochako waxay ka codsatay macallimiinta inay si gaar ah u eegaan wixii Midoriya sameeyey. Sababtoo ah iyada ayuu badbaadiyey. Muddo yar Midoriya xitaa ma rumaysan karin waxa uu maqlay. Indhihiisa waxaa ka soo daadatay ilmo. Maxaa run miyaa? Haa, waa run. Waxaan galay UA. Markii uu xaqiiqsaday inay run tahay, Midoriya si aan la xakamayn karin ayuu ooyey. Riyadii uu soo waday tan iyo yaraantiisii ugu dambayn way rumowday. Wuxuu helay One for All. Wuxuu helay geesigii uu ku dayan jiray. Wuxuu galay iskuulkii geesiyaasha ugu fiicnaa dalka. All Might markaas wuxuu ku dhawaaqay. Izuku Midoriya ku soo dhawow UA Hero Academia. Midoriya farxad darteed wuu qoslayay wuuna ooyayay isla waqtigaas. Laakiin haddii uu u maleeyay in dhibaatooyinkiisii halkaas ku dhammaadeen, aad buu u qaldanaa. Sababtoo ah caqabadaha ugu waaweyn ee noloshiisa hadda ayay bilaabanayeen. One for All weli ma uusan xakamayn karin. Baakugo weli wuu necbahay. UA-na waxaa ku sugayay arday aad uga xoog badan sidii uu filayay. Laakiin tani waa sheekada wiil aan wax awood ah lahayn. Oo maalin maalmaha ka mid ah noqday geesiga ugu weyn dunida.